السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله تعالى ما أنت وحين كهذا لنا موضوع رنتي آدو قيمة بدن وحين كهذا دونا خشوع ده وإنو كلا قادي دونو أفر قضب. أولا مركوه الرئيس وامحي خشوع ده sidee ayaan ugu khushuuci karaa marka aan qur'aanka akhrinayo waxyaabo kaa caawinaya khushuucda iyo waxyaabaha qofka ka kaxeeya khushuucda. waa maxay khushuucdu? culimadu waxa ay ka bixiyeen tacriifaad aad u fara badan oo xagga macnaha isku imanaya ama qeexitaano aad u fara badan oo macnihiina isku imanaya. waxaynu soo qaadan doonaa tacriifka ama qeexidda uu ka bixiyey ابن القيم رحمه الله تعالى وحويني الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. خشوع دوا معنى كان سنيا ويني وقفك وينين يا إلهي يتشعيل وتشعلان يو ذلي وإلهي سبحانه وتعالى ويسكب ذلين يو ويسبهم بهن يو ويسباهن يو intaasi oo qofka qalbigiisa ku soo xaadirta ayaa waxaa imanaya khushuucda. khushuucdu islaamka waxa ay ku leedahay qiimo aad u fara badan. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur'aanka uu kaga warramay saxaabada iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waqtigii loo soo waxyooday uu ka joogo 4 sano oo keliya ayaa haddana saxaabada waxaa lagu canaantay inay khushuucdoodii yaraatay oo ay isdhintay. إلهي سبحانه وتعالى وحو كيد في سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إلهي سبحانه وتعالى وحو ألم يأن للذين آمنوا miyaanay u dhowaanin kuwii iimaanka laga helay an takhshaca quluubuhum inay quluubtoodu ku khushuucdo lidikri illaahi ilaahay xuskiisa iyo wamaa nazala min alxaqi iyo wixii soo degay ee xaqa ee qur'aanka ah miyaanay u dhowaanin inay quluubtoodu ku khushuucdo baa ilaahay yidhi oo walaa yakuunuu aanay noqonin kaaladiina uutuu lkitaaba min qabl sida kuwii kitaabka la siiyey iyaga hortood fataala calayhim alamadu oo ay muddadii ku dheeraatay faqasat quluubuhum oo ay quluubtoodii engegtay oo ay qallashay wakathiirun minhum faasiquun qaar fara badan oo iyaga ka midina waxay ahaayeen kuwo ilaahay daacaddiisa ka baxay. khushuucdu qiimahaasi ayaa ay leedahay. haddaba markaaynu qur'aanka akhrinayno sidee ayaynu ugu khushuuci karnaa? qodobka u horeeya inaad niyadaada ilaahay u badhax dhigto in markaad qur'aanka akhrinayso aad niyadaada ka dhigto ilaahay darteed oo aad ka saarto waxyaabaha kale oo dhan. taasi waxay keensanaysaa inaad qur'aankii ku khushuucdo oo iimaankaagii uu kor u siyaado. qodobka labaad inaad qur'aankii ku akhrido cod aad maqlayso si codkaagaasi uu maskaxdaada u gaadho oo aad aayaadkii qur'aanka ahaa aad ku tadabburto cod aad si wanaagsan u maqlayso. inaanad qur'aankii ku akhrin meel buuq aad u fara badan uu ka baxayo oo laga yaabo waxaad akhrinaysaba inaanad maqlaynin. meel deggan oo aad codkaagana si fiican u maqlayso haddii aad qur'aanka ku akhrido waxay keensanaysaa inaad qur'aankii ku khushuucdo. qodobka saddexaad inaad ilaaliso axkaamta tajwiidka ee qur'aanka intaad awooddo kuna dadaasho markaad qur'aanka akhrinayso inaad ku akhrido qur'aan tajwiid leh. tajwiidku wuxuu kaa caawinayaa inaad qur'aankii ku tadabburto inaad madka jiiddo qunahana hayso oo aad ku dadaasho intaad awoodayso inaad ku akhrido tajwiid. wuxuu kaa caawinayaa inaad qur'aankii ku khushuucdo. qodobka afaraad inaad qur'aankii ku akhrido cod deggan sidoo kale aanad hareeraha eegin. waxyaabaha kaa kaxaynaya khushuucda iyo tadabburka waxaa ka mid a inaad hareeraha eegto oo aad cidda socota iyo waxyaabaha socda ama moobilkaaga aad eegto adigoo qur'aankii akhrinaya
ama qof wadada maraya ama qofka hormaray ama cid kale aad eegto waxay kaa kaxaynaysaa aayaadkii aad akhrinaysay laakiin inaad tawajuh ku akhrido oo cod degan oo sakiino leh oo aad u soo jeesato inaad qur'aankii ku akhrido qodobka ugu horeeya inaad ka fogaato dunuubta waayo dunuubtu qofka qalbigiisa ayay qallajiyaan waxaanay ka kaxeeyaan khushuucda iyo cabsida ilaahay qofku intuu awoodo inuu dunuubta ka fogaado haddii uu dembi ka dhaco bini aadan baynu nahay oo bashar baynu nahaye inuu markaba ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keeno toobaduna mar walba way furan tahay inuu xagga ilaahay qofku u noqdo dunuubtana uu ka fogaado oo uu joojiyo qodobka labaad inuu ixtisaabo ajar oo marka uu qur'aanka akhrinayo uu ishor keeno ajarka laga helayo qur'aanka akhrintiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiisu macnihiisu yahay man qara'a xarfan min kitaabi illaahi falahu xasana qofka qur'aanka ilaahay xaraf ka midoo qur'aanka ilaahay akhriya waxa uu leeyahay xasano xasanadaasi waxaa loo laban laabayaa 10 jeer ma odhanayo alif laam miim waa xaraf laakiin alifku waa xaraf laamkuna waa xaraf miimkuna waa xaraf marka ajarka inaad ishor keento oo aad ixtisaabto ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ajarka ka helayso haddii aad qur'aanka akhrido qodobka saddexaad ee kaa caawinaya inaad ku khushuucdo qur'aanka inaad mar walba qur'aankii akhrido oo aanad qur'aankii ka haajirin oo aanad ka fogaanin ama muddo dheer aanad qur'aankii akhrinba inaad mar walba qur'aankii akhrido inaad wardi samaysato maalin walba aad qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka mid aad akhrido waxay keensanaysaa inaad qur'aankii ku khushuucdo oo marka aad soo gaadho aayaadkii jannada ka sheekeynayay aayaadkii naarta ka sheekeynayay aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala weynidiisa ka sheekeynaya qisaskii dadkii la halaagay waxyaabahaasoo dhan markaad maalin walba qalbigaaga ku dhaco hadalka ilaahay waxay keensanaysaa inaad qur'aankii ku khushuucdo marka inaad qur'aanka ka haajirin oo aad akhrido maalin walba inta aad awoodo inaad qalbigaaga ka nadiifiso xanuunada ku dhaca qalbiga qalbigu waa halka lagu khushuuco waxaan u leeyahay xanuuno ku dhaca inaad ku dadaasho qalbigaaga oo aad ka fogeyso xanuunada qalbigaasi ku dhaca oo uu ka mid yahay kibirka isla weynida xasadka iyo xumaanta waxyaabahaasoo dhan inaad ka fogaato oo aad qalbigaaga ka nadiifiso waxay keensanaysaa inaad qur'aankii ku khushuucdo oo uu qalbigaagii dabco oo uu jilco waxyaabaha qofka khushuuc la'aanta ku keena waxaa ka mid a qaswatul qalbi qofku inuu qalbigiisu engego waxyaabaha qalbiga engejiya waxaa ka mid a dunuubta marka qofku inuu ka dheeraado dunuubta haddii uu dembi ka dhacana inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u toobad keeno qodobka labaad ee qofka khushuucda ka kaxeeya waxaa ka mid a adduunye jacayl qofku inuu adduunyada jacaylkeedu uu qalbigiisa uu ku weynaado oo uu iska daba rido waxay keensanaysaa inay ka tagto khushuucdii adduunyada iyo shaydaanku qofku haddii ay qalbigiisa ku weynaadaan oo uu raaco oo uu adduunyada israaciyo waxaa qofka ka tegaysaa khushuucda qodobka saddexaad ee u dambeeya ee qofka ku keenaya inuunu khushuucin waxa weeye inuu qur'aankii ka haajiro oo aanu qur'aankii akhrin muddo dheer akhriskiisana uu ka dheeraado waxay keensanaysaa qofkaasi inay khushuucdu ka tagto sida ay qofka u keenayso khushuucdu inuu qur'aankii mar walba akhriyo inuu ku khushuuco sidoo kale qofku haddii uu ka haajiro qur'aanka oo uu ka fogaado oo muddo dheer aanu akhrin waxaa ka tegaysaa khushuucda iyo inuu ku khushuuco intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa allana haynaga dhigo kuwa khushuuca asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu